isku imaatinkan ujeedkiisu waxa uu ahaa xus iyo duca loo sameynayay shuhadadii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar oo ka koobnaa gudoomiyaal degmo, agaasimayaal iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jiriso ayaa lagu qabtay masjidka Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho. xubno ay shaqo wadaag ahayeen shuhadadii ku shahiiday qaraxaas, waalidiin iyo caruur ay dhaleen marxuumiinta, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa si wada jira Alle ugu baryay inuu janno firdawso geeyo marxuumiinta. Zeynab Xaadsi oo ah gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir kana mid ah dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaas ayaa sheegtay inay marnaba hilmaami doonin saaxiibadii ay shaqo wadaag ahayeen ay ku weysay xarunta aqalka dowladda hoose qarax ka dhacay 2019. waxaan leeyahay emotion ahay run ahaantii saaxiibaday aan jeclaay dhibaatadu ay gaartay cadowga uu soo maleegay ee maanta shuhadada ah naga hooseeya idinma iloobin waxaana ka shaqeyn doonaa wax allaal wixii aad jecleedeen oo wanaaga oo khayr ahay insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in jannadii firdawsa aad miraheedii guran doontaan haddana aad guranaysaan intii xanuunka aadka u daran soo gaaray oo aniga iyo walaalkay gaboose agaasimo gaboose aan ka mid nahayna ilaahay waxa ka baryeena caafimaad taama iyo cimri dheer iyo cibaado suuban waxaana leeyahay qof walba oo ka qayb qaadatay maantay in aan soo gaarno Allah subhanahu wa ta'ala ka sukow xaaladaheena caafimaad iyo walow qofku markuu dhibaataysan yahay ama dhib uu dareensan yahay uusan helaynin boqolkiiba boqol caafimaadkiisa wuxuu u baahnaa haddana waxaan leenahay waa mahadsantihiin intiina la damqanaysa waa mahadsantihiin intii cadowga ku faraxsanaay ee ahayd in aan maanta sidaas oo kale u baxnana waxaan leenahay idinma suurtagelin oo tii ilaahay baa taagan waxaana ku qanacsanahay wax walba Allah subhanahu wa ta'ala noo keenay mar kale waxaan leeyahay mu'asasada oo maanta anigu dadkii ballan qaadan ku jira inta idinka dambeeyo waxaad noqon doontaan kuwa mar walba loo soo duceeyo oo khayrka iyo wanaaga sanad walba aan ku xasuusan doono halkan inta aan noolahay oo naf igu jirto insha Allah. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay marnaba hilmaami doonin kaalinta ay ka qaateen horumarinta gobolka Banaadir marxuumiintii ku geeriyootay qaraxii 2019 ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose Xamar kaas oo ay ku geeriyoodeen agaasimayaal, gudoomiyaal degmo iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Marxuum Cabdiraxmaan Cismaan Jiriso. dhammaanteen waa dhimanaynaa qof baaqi noqonaya ma jiro laakiin waxaa la xasuusanayaa waxa waaye dad badanaa dhintay oo ahlu khayr ah oo la yaqaano waxaa la xasuusanayaa lama ilaawaanka waxay tahay dadkaas wax ku oolka ah wanaagga ummadda ka shaqeynayay ee cadowga ku beegsaday hal goob oo uu ku halaagay taas ayaa mudan in la xusuusto loona duceeyo mar walba gaar ahaan la isugu yimaado sanadkiiba marka waa sanadkii labaad hadda oo munaasabada ayada ah la isugu yimaado mawlaca ama mu'asasada Macalin Nuur looguna duceeyo sidoo kale sida hadda mas'uuliyiinta qaarkood ay ka dhawaajiyeen berrito oo ku beegan 24-ka bisha 7 ayaan iyagana xarunta gobolka isugu imaan doonaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka waxaan sameynaa xilligaas taariikhaha iyo muuqaalo ka turjumaya qof walba taariikhdiisa ayaa halkaas lagu aqriya sidoo kale ehelada ayaan axwaalaadkooda xaaladahooda iyo sida ay ku nool yihiin ayaan ku wareysanaa sidaas ayaan ayadana berrito haddii alla idmo samayn doonaa gelinka dambe haddii alla idmo. Ibraahim Xaaji Yuusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho.